ودنا مدحوينه وحمانتا شرف إياه وأنا أدو فرح سنة أدينا كاجا مهد علينا إنه بلنقات كي إنه قال لي برشدة إنه ولا قال لي وعهدي إنه برشدة لا قال لي ما أنت كي يقول ريي وفليو وعد بلودي يدي شيران قار كلا ولا جاي أبينا نسيد كوما كلا حين ويجونا الصعدة لكن سيكوي ويناي مشاريع لها آدي بدو ما تنتهي وحن إلهي كريتشينا يا إنه هذا ما يسترو وإنه قرب قلو وإنه قوليه وحن سيدو كله برشة غير بلغ بدلي قبل كهود آدي وبوجادين يا سيد قيمها بدن قرح ذا بدن نية سميدة يكون قابلين مشروع كان وديار قروبين يكون بلن قادين يسبر برتاجان إن شاء الله تعالى ودمان دونا مشروع والباي برشة الدولة يسوع قرب قلان ويسوع كاشدان ودمادا آدي بنيجنا وهم بليينيا حاول ودينا كشقينيا ماريها ودوينك يا إنت هوست ماده وزيرك ودوينك يجنا وحنون درداريا شقدا أو بردين وفيدتين وسودي أرجرودين الله يديكوا قولي وشقع عرس marka niyada ku qabta sidii ay u dhameyn lahaydeen ugu hawl gali lahaydeen hawl yar ma aha waxa laga yaabaa bilowga iyo farxadan iyo reereynta iyo dhagax dhigu waa maanta wixii ka dambeeya shaqo idin bilaabanaysa idinkii wadada la idin kala tagaya wadaduna waxa hawl yar ma aha wadadu waxa ku baxda lacag fara badan waxaanay u baahan tahay tacab aad u badan waxay u baahan tahay oo intaba ka sareeya go'aan adag iyo farsamo yaqaan daacada oo dhaxda weeyda go'aan adag oo caqabadaha jiida oo lagu jiido waa idan dib isu taagin iyo farsamo yaqaan idin caawiya oo daacada oo idin kala shaqeeya wadooyinku runtii lacag aad u badan baa ku baxda marka inaynu isu dhigno oo ku talagalno وقال كذا يالنو وأين أن أقعدن وحسهلن يحبح على سكين معها وضد العق هاي لو عادوا بدن بيو بهنتاي تعب وين ويو بهنتاي مركب حلا يجانا ما أنتوا يدين بالعبي وأن كوكل صونا هينا كبحيسان وأن كوكل صونا هينا مدحوينو يدين صح ولا يرقي فلين لها وأشغل إن شاء الله تعالى لما يستري دونتان ودوين كنا جودهان والشيء كليه منك مدعي الرأي نوما يعني أو أنا هاي ديار ده هاي نوي مادة أو ينصم عنه منك رقالي نجسو كلام تشلو مدك دول خنا أحلى مدك بدنا إنك أود ملهنا إنك كنترولو ودوينك أما اسكو حركة الشبكة ده ودوينكو والشيء كوباد منك رقاليه يسكو حركة دلك ينبت جليده لما لا يجوا والشيء هالبولها ينوه رول نتورك وحلا يهدا ودقالها يدلك اسكو xidkiisa iyo nabadgelyadiisa wuxuu yahay halbowli marka laga tago dhaqaalaha nabadgelyada halbowli uu yahay oo meesha wada leh in kooban baa gurmadku isku gaadha oo nabadgelyada lagu sugi karaa marka wadooyinka aad bay muhiim yihiin wadadan bal lagu badlana waxay ka mid tahay wadooyinka halbowlaha wadooyinku waxay u kala mudan yihiin shaqada ay qabanayaan wadooyinka gobolada isku xidha waa muhiim wadooyinka isku xidhaya degmooyinku waa muhiim iyaguna wadooyinka isku xidhaya meelaha dhaqaalaha ee sida badda iyo kuwa ku xidhaya corridorska ku xidhaya dalalka kale inagu xidhaya aad bay muhiim yihiin haddii la eego wadadan balagu badli waxay gobolkan Hargeysa ama Maroodijeex intii la isku oran jiray u tahay runtii farxad weyn waa degmadii u dambeysay ee ku soo xidhanta marka xaggii degmooyinka laga eego ee ku soo xidhanta caasimadii insha Allah ta'ala markay dhameystiranto afarta degmo ka koobnaa
degmada Hargeysa tan Balugubadle ta Gabiley iyo ta meesha la yiraahdo Salaxle afarta degmo Salaxle iyadoo socota ay ugu dambeysay oo iyaduna gabagaba ah marka afarta degmo iminka wuxuu noqon doonaa inay gobolka kaliya degmooyinkiisu ku wada xidhan yihiin dhammaan goboladii kale waa qabyo xagga kale marka la iska taagana goboladii cusbaa waa wadada koobaad la sameeyay laba goboloon baa ku xidhan adhaxda weyn oo midna tahay Gabiley midna tahay gobolka la yiraahdo Caynaba labadaas ma adhaxdii weyneed ee isku xidhka wadooyinka ku xidhan ee qadiimka ah laakiin se gobol oo iyagoo jiraba gobolnimada loo magacaabay goboladii kale kana u horeeya marka xagga gobolka la iska taago marka aad iyo aad bayaduna fadli iyo tiyaado ugu tahay gobolkan inuu wadadan helo gobolada kale dhamaantood waa la sugayaa waa himilo dheer oo dalku leeyahay oo u baahnaan doonta afarta degmo ee Boorame iyana inay ku soo xidhmaan waa ilaahay mahadin dawladanu ay iyadana degmadii koobaad ku soo xidhayso oo Bakiya oo wadadeedii socoto oo iyaduna ay ku soo xidhmi doonto adhaxda weyn ee gobolka oo dawladanu insha Allah ta'ala u suurta gali doonta iyadana boqolka cisho insha Allah ta'ala oo labada degmo ay hadsanaan doonaan ee Saylac iyo Lughaya ama gobolka Salal iyo Lughaya oo iyadana aynu rajaynayno wadada dheer ay isku xidhi doonto Djibouti iyo Awdal axlaa Boorame inay iyaduna isku xidho marka waxa muuqata rajaad u fiican oo aad qurux badan inay goboladii development kaas uu wada gaari doono biidnaahi ta'ala sidoo kale gobolka Togdheer oo isaguna wadadii la wado qorshaheedii wadadii Hargeysa ilaa iyo Oodweyne ilaa Burco ayuu isna wuxuu sahli doonaa inay isku xidhmaan saddexdii degmo ee gobolka Togdheer oo ahayd degmada Burco Oodweyne iyo Buuhoodle inay isku xidhmi doonaan Burco iyo Oodweyne sidoo kalena ay ka mid tahay ballanqaadiyadii madaxweynaha iyo xisbiga wadani in Buuhoodlana uu ku soo xidhmo oo wadadiisu ay ka baydhi doonto Wadamago aanay ku jirto political programka sida markay tahay Ceerigaabana lixdii degmo saddex way isku xidhanto wadadii Ceerigaaba isku xidho Garadag iyo Ceelafweyn iyo Ceerigaabo saddexda kale insha Allah ta'ala waxay noqon doonaan mustaqbalka saaxil laba degmo ay ka koobnaydo waa Sheekh iyo meesha la yiraahdo Berbera labadii already wadaday ku xidhayeen wadadii dheereed bay ku xidhayeen haday intaas isugu keen xidhmaan waxa dhaqaaqi doona isku xidhkii iyo dhaqaalahii dalka isu socodkiisii marka aad iyo aad baan u hambaliyaynayaa shaqada dheerna cid laga sugaya waa inaga guud ahaan dadka reer Soomaaliland gaar ahaan xukuumadda joogta iyo xisbigeedana uu afkiisa ku hadlayo oo xilkii aynu maanta inagu hayno ayaa la inaga sugayaa oo waa qori isu dhiibo maalinba meel baa laga sii qaadaya waxaan ku faraxsanahay marka ugu dambaysan xusaya inaan wadadan Balugubadle ahaa wasiirkii bilaabay oo waliba aan wax badan la iga dambeeyay oo nasiib ku siiyay maanta ay dawladda dhamaystirayso waa mahadsantiin salaam calaykum